السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وايد سلامي. سودو هذا خير الله تسيء. سودو هذا ولا هي سوماليات. سودو هذا وأضيق بين مشاقة إن عاو حربان عن ترجليو تصالة أنسيو ولا هي سوماليات ولا هي دت كان كذا شيء وهدي الكروي هي بريها همبا وهدي الكروي هي بريها همبا هوشودو أي سعتي أهاتي أي إن شاء الله كل ما عنده تقول يقبلني كل ما عنده تسدان رجينا إن شاء الله بإذن الله. إن عاو حربا ترجليو في عن يتصالة ويا رجنيو نصيو الربا. أنا عندنا أوقفين أنا عندنا عاين أنا عندنا أفلقادين لكن أركتي ذا حرت عاينا قيميو أي الربا إن شاء الله بإذن الله. والله الصوماليات واحد قاعد صنايع أنا تسيشر قريسان بعد قاعد صنايع إن شاء الله بإذن الله. وبرنامج كان مرتي أتجارسيسانين ومضى إن أتجارسيسان أي الربا إن شاء الله بإذن الله عوارن تجرته وارن مرتي ندي لك وروي هي مرتي الربا يا ما فهمت أرنتها مركا واحد ربا إن أنا عاود تلقليه كبحيو تلقليه في عنا كبحيو أركتي في عنا كقيميو ويا أرجنمو يهدي الخروي هي أن أجا هي إن أنا مرتي ولا الله سيو بربع ولا الله إن هو يا أرجنمو سيو بربع إن شاء الله بإذن الله ويا أرجنمو بحدنا سيو حذيفي سودو حذيفي عبد سودو سيشير قرية إن واحد ربع إن أنا عاوة لا أركو سوشيال ميديا هي برها بالشدة dadka aan la hadlaayo inay dad baawar leeyihiin in la arko warba ma fahanteen dad baawar leeyihiin oo social media baawar ku leh oo sheertoodu shaqeynayso oo codkoodu shaqeynaayo inay yihiin barba caaw bilis ma fahanteen arintaas ba caaw idiga codsanaya dhammaan walaalaha Soomaaliyeed inay is share gareysaan oo gaarsiisaanin ummadda aan la hadlaayo iyo talada aan siinayo hadii la ku riixay waxa jira bariyahanba hugun baa jira هوجن باجرا مركا هوجن كان وحنا إن المرة دين بيامن إن شاء الله بإذن الله عادين كنا سومالي وين هي أنه أوجاتان هي حقيقة ديسة ما فهمت حقيقة ديسة إن أنا لو أوجاتان برا مركا واحد ربع ضدك عن الله يو عن ماشي كوسو قرطيو أما ماشي كم موضع أما سؤال واحد هذا أما مدرسة كم موضع أما مدرسة كم مقنو أما كم موقع مدرسة أما كم موقع أما كم مقنو waxaan rabaa dadka aan caawa la hadlayo oo tolkay ah oo ehelkayga ah ee aan rabo caawa inaan waayo aragnimada iyo talada iyo hadii la ku reeyay maadaama aan dhalinyaro ahay aan adduunka u warhayo oo wax socda aan ogahay marxalad meesha marayso aan ogahay waxaan rabaa inaan caawa idin wadaago waan rabaaye meesha caawa inaa ka dhex muuqataan oo sheertuna shaqaysaan ya sheertulnimo iyo sheer maaragtay marka waxaan rabaa insha Allah بإذن الله هدي الله أدموه عاو وخدح مقنسان ماشا عاو حربا أنا خدح مقتان وحربا تصالح في عن وناكسن عن ترحان لهين هدي الله كوري هي إنوع افتين إنوع إنك وحينوع ما فهمت ما فهمتين waxaan rabaa innagana waxa inoo tahay sharaf inaan wax dhisano
inaan meesha ka muuqano inaan maaragtay dad isu tagi kara noqono inaan noqono dad midoobi kara war waxaan dowladaha laydii sheegay ayaa aragteen waa meel baa laisugu tegay mid walba meel baa laisugu tegay hadday somaliland tahay hadday puntland tahay hadday dowlad kasta tahay meel baa laisugu tegay waxaan rabaa dhulbahaantow iyo warsangeliyo inaan dhiigga isu yeeshaan dhiigga tubaladiga jaga dhiigga isu yeela wallaahi bilaahi tallahi dhiiggii baa laynaga shubtay waa layna duleeyey waa layna sexray meel walba balaaya laynooga taagay waxa weeye waa midoobi weyne waxba waa qabsan weyne waa dadnimo darra in haysata mid baa halka xagga tagaya somaliland tagaya mid baa puntland tagaya waxaa leenahay waa falan yahay waa sexran yahay sixir maaha ee waxaa ina haysata dadnimo darra ina haysata dadnimo darro baa inaga ina haysata ee meesha ka kaca oo dhiig isu yeela kacbyare soo dhawow saaxiib kacbyare soo dhawow waa saaxiibkay kacbyare soo dhawow mas-uul soo dhawow ugaaska soo dhawow ugaaska beesha muruursado weeye waa ugaaskii soo dhawow weliba ugaaska beesha hawiye weye ugaaska beesha hawiye weye kacbyare ninka la yihahdo waa ugaaska beesha hawiye waa garanaysaa de muruursada waa ugaasyadooda weye marka halkaasaan kaga sii baxaya laakiin waxaan idiin sheegaya war dhulbahaantow 30 sano iyo warsangeliyow 30 sano baan habowsanahay caruurteenna waa bilaa iskuul hooyooyinkeen iyo hooyadii dhallaanku waa bilaa cusbitaal haddii alla ku reeyahay ma haysano agab caafimaad agabyadan maaragtay dadka horu maray ee maanta maaragtay haddii alla ku reeyahay adduunka la isticmaalayo waa aragteen wadooyin ma haysano dekeda ma haysano war caqligeen waxa fiican inuu shaqeeyo bal ilaahay baa idinku dhaariyey dhulbahaanta iyo warsangeliyo waxa qiimaysaan oo eegtaan bal maxamuud saleebaan eega beesha maxamuud saleebaan bal eega garaacad maxay ahayd ilaahay baa idinku dhaariyey garaacad maxay ahayd maanta waa aragtaan garaacad deked baa loo dhisay waxa weeye haddii la ku reeyo horumar baa loo wadaa waxa weeye waa tagtay waxa la wadaa laamiyaa loo jeexayaa haye waa aragteen meel la yidhaahdo gordafuul baa hadda wadadii ka go'day gordafuul majeertoon oo dhan saas isugu shubay daf baa la yidhi majeertoon oo dhan waa loo ordo waa la isku shubay reer dhulbahaante ka mid ah ama reer warsangeli ka mid ah wadadii baran ceeldaahir ceergaabo waa la joojiyey stop baa la saaray waa la joojiyey haddana gordafuul baa la isku shubay waxaa la leeyahy gordafuul baa xiran waa ummad goodoosan in wax loo qabto waa mudan yihiin laakiin haddii beel dhulbahaanta ah wadada ku xiranto cid u furaysaa wadda ma jirto haddii beel warsangeliya wadada ka xiranto cid u dhisaysaa ma jirto wadadii cabdiweli gaas furay cabdiweli gaas inoo horseeday waa joojiyey deni waa joojiyey cag buu saaray marka dhulbahaante iyo warsangeli waxa ii muuqatay inaan wax dana ugu jirin maamulkan inaan maaragtay horumar inoo jirin inaan haddii alla ku royn layna rabin haddii alla ku royn yahay aan cid inoo jeedin dowladdani waxay noqotay almaxamuud saleebaaniya noqotay xaqiiqada markaa idin sheego almaxamuud saleebaaniya alciise maxamuudiya alcumar maxamuudiya alcismaan maxamuudiya noqotay ma fahanteen waagaa maqli jirteen alharti war harti baan nahay alhartiyoy waxay ahayd markay danta lahaayeen nimankani hadday dan leeyihiin wax ka fiican ma jeerteen ba haddaa aragtaan gobsana alla gobsana alla suldaan bay leeyihin suldaan warsangeliga annagana waaba eedna sandaradaasaan eednayba waaba nalagu baartayba sandarada nalagu baartayba wey alla warsangeli suldaan baa la leeyahay aniga xayraanka waxba ahaynba hadii lagu reeyay layfka qaaqna ka hayo waxaa la leeyahay goortii baa ka soo baxo ana suldaankii weeye u kaca suldaankii baa la leeyahay markaasaan leeyahay war waa boqortooyadii weeye maxamuud saleebaan weeye waa cismaan maxamuudkii war waa boqoradii waa walaalaha iyo waa gobti waa been afka baarkiisa wey waa beentood waa afka baarkiisa baa wallahi inaan beedi sheegin waa afka baarkiisa garaadada dhulbahaantana waxa la yidhahda ma taqana ariga garaadadii wallahi garaadka meel aanu garaadku fadhiin aw garaadku ka maqan yahay meel maaha baa la yidhahdaa or may fahantiin horta meel garaadku ka maqan yahay meelba mahaba meesha garaadku duuba ka maqan yahay meelba maaha meeshan yuu yahay suldaanka daarood baa lagu leeyahay suldaanka daarood warsangeli waa suldaanka daarood haye suldaanka daarood waa suldaanka yaga shir aanu isagu furin maba furmaba wixii intaanu aaminay oo cimaamado rushwaana qaadanay oo qorigii iska dhignay oo macawuuso qaadanay oo cimaamado isku boobnay oo koofiyado isku boobnay maxaabana lagu sadaayay suldaamadoodii iyo nabadoonadoodii iyo isimadoodii oo qori ku raran baaba dhawda guraya xabadda saa u ganayaba
مير والله دو 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 بقول واوجيدين هولكي برلمانك هذا واوجيدين سلطان قراسة وحسيتي توتي سلطان قراسة توتي نو سو كشدي markaasuu dhaw wiilasha ku laayay ariya allah yaqaano islaam annagana suldaankaygii waa isnabayaayo waxa uu hadli waayo suldaankaygii waa noo aamusay oo wuxuu isleeyahay ahadlin oo saxaafadii uu ka hadlay meel ka hadlino hadii la ku reeyay niman habaar qabo oo adiga oo shida wax lagu dhibayaa 30 kun bac lagu xirayaayo albaabka ka boodaysaa ilaahay wuu ogeeyay baan ku 30 kun albaabka bac lagu xirayaa mee suldaamada yadii mee wax sahal la yiraahdo baan inta la furay waa guriga fadhiyo wallahi qulululux suldaanku iyo nabadoonkii iyo isinkii iyo odagii iyo wax garadkiiba maxay ku sugteen sariirtay hoosta ka galayaan baa kori yaa albaab ku soo garaacay halkiiba ku raadinayo halkan qolya la yaacayo oo niman ba halka wareegaya baan leeyahay magarad maxay sameeyeen waxay sii sameeyeen 59 caaqil oo ma garanaysa aan bajirin baba sameeyeen caaqilo aan bajirin bay sameeyeen isma aan jirin bay sameeyeen koofiyada saa ku gureen daq koofiyada imaamadaha maalinta shir leeyahay 30 bay u galiyaan koofiyada 30 oday bay koofiyada soo galiyaan xayraamin meelaha iska joogtay dhaha ariyaha saadkaaga ka eego saalka ka eego kontor daq ariyaha hebel 40 ka eego daq hebel 100 ka eego daq rushwaan soo gado macawusna soo gado imaamadna soo gado dhag shirkiiba warniyo heerkaasaanu gaarnay waxaa leeyahay dhulbaahantay iyo warsageliyo meesha ka kaca maamulkan maanta haddii la ku rooyahay midnimo maamulka la yiraahdo midnimo dhulbaahante iyo warsangeli ay maanta ku midoobeen iyo horumarka ka soo socda iyo dowladdeena federaalka oo haddii la ku rooyahay iyaduna ina garab taagan waa ogtihiin ninkii deni dabada dhul ku dhuftay hadda muqdisho u socda laakiin waxba ka qormi maayaan waxna ka socon maayaan waa wax la ka qormayaa ma jiraan wallahi inaan wax ka qormayaa jirin baad waxba kama qormayaan waa nin waalan kama duwana marka waxaan leeyahay nimanka tolkeena maxamuud Saleebaan adeero halkiina ma jeerteen oo iska noolaada warsangeli iyo ma jeerteen waa isku hooyo iska laqa hadalkii waxa qaadataa ninkii la oran jiray wuxuu yiri caruurtu muxuu yiri guskaaga xniyahaaga buu yiri xniyahaaga laguma ciyaaro buu yiri laakiin naasahaaga maxay ahayd kulli naasahaaga wala caruurtu buu yiri xniyaha aabahood ma taataabato buu yiri caruurtu xniyaha aabahood ma taataabato buu yiri laakiin naasaha hooyadu waa ku ciyaaraan buu yiri hadalka waxaan rabaa horta warsangeli una faantaanin ninkii la oran jiray Ahmed Karaash hadalkiisa horta inay qaadataan ma raba dadku waa yaaban waxay leeyihiin Ahmed Karaash hadalka wuxuu yiri dhulbahaante waxa weeye wuxuu ka wadaa lama taaban karo oo waa niman qooqaaya oo waa niman balaaya ka dhacday oo waa niman dilaa abu ka wadaa bay yiraahdeen kuwa waxay yiraahdeen saas ka wadaa maaha hadalka Ahmed Karaash uu yiri caruurtu xuniyaha aabahood kuma ciyaarto ma fahanteen laakiin naasaha hooyadood waa ku ciyaartaa wuxuu ka wadaa dhulbahaante iyo ma jeerteen oday baa wada dhalay ma fahanteen nuguma ciyaari karaan oo walaalanahay oo waa iska celinaa buu laakiin wuxuu ku leeyahay warsangeliga macnaheedu iyo dhumajeertanku waa wada dhasheenoo ya waa isku hooyo ma fahanti la naas bay wada nuugeen marka caruurtu naasaha hooyadooda ku ciyaartaan annaga nuguma ciyaar karaan haddaan dhulbaantanahay oo oday baan wada dhalay buu leeyahay ninka hadalka waa cadeystay Ahmed Karaash leeyahay hadalka waa cadeystay mana gabado dadkaas boqolka kunka kaba gabado marka waxaan rabaa harti waqooyi tashada waa dhulbaantay warsageliyo tashada anu wax badan baan ku daalay wax badan baan khaatumaysnaa wax badan baan maaragtay qayliyey wax badan baan maaragtay hadlay wax badan baan walaalahay dhulbaanta difaacay wax badan baan maaragtay haddii alla ku rooyahay xabeebsaday dhuuntaas ay qalashay baa ilaahay iga sarreeya baadin 2017 iyo 18 iyo waqtigii dagaaladu ka socdeen tukaraq aan garow difaacnay garow anaga difaacnay dhulbaanta niman oo haddii la ku rooyahay ugaariyahana iyo haddii la ku rooyahay niman halkaas difaacay iyo niman buuhood la ka yimi oo reer hagar iyo haddii la ku rooyahay haddii la ku guru kala soo xaga ka yimi difaacay ma fahanteen iyo niman warsangeli halka difaacay waa kan jimcaale ninka la yiraahdo inuu furundiid baa horta u bixiyay jimcaale ninka la dhaho la yiraahdo taliye jimcaale halka soo galay taliye jimcaale boosaas loo diray taliye jimcaale halka maray anu horta jimcaale waxaan u aqaanaa furundiid
iga gaarsiiya haddaad rabtaan nin gaarsiiya jimcaale waxaan u aqaanaa furundiid waa ninkii kaarihii beesha cumar maxamuud ee reer mahad bixiyey dhiibay wey laga qabsaday wey ee mushka u dhigay wey intuu yidhi kaaraha cumar maxamuudka kaarahooda halka soo geliya waa la heystaa intuu yidhi buu dib uga baxay jimcaale heerkaasuu jimcaale gaaray inuu mushimo nimanka cumar maxamuud kaarahoodii mushimo oo haddii lagu reeya maanta caruur ku cayaaraanin oo haddeer yaallo meesha la yidhaha burco iyo meelahaasu yaallaayo hadda dib baa la geeyo waxa la diidayaa in laga qabsado ba diideenoo waxay yidhahdaan kuwa kale ha qabsadaan laakiin kan inaga fogoyo bay dheheen yaan la qabsan oo la oran nimankii kaarahoodii bay soo ceshadeen jimcaalena waa intuu rabay kaaray cumar maxamuudka markii la qabsaday dhag saaxib waa gooyeba ciidankii wuu dhawar jabiyey waa difaacii buu ka baxay odayga faroola abaa maaragtay isaguna haddii alla ku reeyahay xagga dambe kaga jiray oo gadaasha ka riixay oo wuxuu lahaa ka soo bax buu lahaa ma garanaysa marka beesha ciise maxamuud nin kagama dhiman nin kagama dhaawacmin dagaalka waxay ka qabteen ma jirto nimanka ciise maxamuud waa furundiid horta ma fahanteen ciise maxamuud waa furundiid ma fahanteen waa wada furundiid waa jimcaale oo furundiid aan u bixiyey wey marka nimanka cumar maxamuud baa jirto waa niman laisku halayn karo oo haddii la ku rooyahay rageedku ku badan yahay oo haddii kula dhimanayo oo difaac aan kaaga baxayn oo maaragtay hore u socdaan maahay aan dib u noqonayn wey qoran ciise maxamuud isku aamini maayo war wallahi inaan nin ciise maxamuud isugu aaminin oo aan isu orayn nin ciise maxamuud aa hilkeelaysa ama nin ciise maxamuud aa wax kuu qabanaya ama nin ciise maxamuud aa ku difaacaya magaca ilaahay baan ku dhaartay inaan ciise maxamuud anigu wax bidayn xaqiiqada markaa idiin sheego nin ciise maxamuud aniga ma rabo inuu difaaco ciise maxamuud oo riyaha dawacada ka ilaashada idinku riyaha dawacada ka ilaashada idinku riyoole baa tihiin adeerow riyaha idigu ogaa ciise maxamuud riyihiina ilaashada ma fahamteen laakiin nimanka maaragtay cumar maxamuud ee halkaa jooga ee nimanka sacadka iyo saleebaanka iyo saa isu jafahayaan ee waa niman dee maaragtay haddii lagu reeyay halkaa jooga oo gees bay joogaan oo annaguna gees baanu joognaayo xagganaanu somalilaanta saa isu rifnaayo qamdiqacgac u aragteen ma fahanteen marka uur ku jirta maaragtay ninka uur ku jirtaa ee bartanka ku jira warba maayoba waa warma ogba warma og wey marka anuu ciise riyoole waxba wadin maayo ilaa suldaankoodii baa qori soo qaatay oo wiilasha hoolka baarlamaanka ku laayay ilaa suldaan garaasaa laayay oo wiilashaa ku qoran yihiin ee gacantiisa ku toogtay ma fahamte war waxaan leeyahay ismada warsangeliyo kaca war waxaan leeyahay dhulbahaanta kaca war waxaan leeyahay xidhiiglo kaca war dhalinyaro kaca war aqoon-yahan kaca war cuqaasho kaca war haweenka kaca war kulligiin wada kaca oo haddii alla ku reeyay maanta ha oranina xaggii ka leexday meel u wada jeesada wallaahi oo bilaahi oo tallaahi saddexda ilaahay lagu dhaartay oo ilaahay iga sarreeya waa dhaar baa maray hadday daacad dhulbahaante iyo warsangeli ka noqoto dowlad inagoo aan federaalna isku aadin cirna aadin meelna aadin maanta federaal baaba haysanaaba oo dowladda federaalka xoogaa ayna garab taagan haddaan warsangeli dhulbahaante nahay laakiin wallaahi inagoo aan cidina ina taaba gelinayn cidi dhaqaale ina siinayn baa dhulbahaante iyo warsangeli wax qabsan karaa oo midoobi karaa waa hal eero aan isku darro wey dhulbaantay warsangeli haddaan nahay waa hal eero aan isku darro hal eero wey hal eero iska badaa 100 iyo 50 iyo 10 eero iyo 20 eero iyo $20 iyo $20 aan isku darro iska badaaba waa $1 baanu iskaga celin karaa ma jirto oo dhan $1 baan dowladda Soomaaliland isaa qodna iskaga celin karaa ilaa dowladda Soomaaliland waa reer dowladda Soomaaliland waa reer dowladdan Puntland waa reer waa laba reer baan dhexda ugu jiraaye maxaa inaga inoo diiday inaan meel aadno maxaa inaga inoo diiday inaan meel istaagno maxaa inaga inoo diiday inaan wax qabsano bal su'aasha aan mar walba isweydiiyo wata halagaan aniga qayliya waaqa anagoo hartiya nimanka ma jirteen waa wada dhalanay nimankan waa wada dhalanay walaalaan nahay nimankan waa wada dhalanay ma jirto waxaas forget saaxiib iskaylo wallahi billahi iskaylawa warsangeli waa wada dhalanay adeer wada dhalasho xitaa nagama dhaxayso ma taagnaan wada dhalasho waxa la yiraahdaa xitaa ay nagama dhaxayso dhulbahaante iyo warsangeliyo kaca haddii alla ku rooyahay midnimadii iyo dowladnimadii waa soo ifaysaa madaxweynaheena hadda maaragtay kumeel gaarka ah cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed ama isaga aynu doorano ama nin dhulbahaante warsangeliya aan saarno ama haddii alla ku rooyahay mid warsangeliya aan saarno aan tashanno oo taladeena meel isu qaadno cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed waxaa la yidhahdaa shimbirkii la soo diray arrestishek
هاي ست شمبركي شمبك إلا صوت ريا ها معي شمبركي وعصا كل بيستري معي وجنبي الناس وأوجن بي هستا وأوجن بي صاحب قص بوزي هستا كجود هستا وأوجن بي أنا ده جروي بقر جنبس كجبرتي وأوجن بي بي مركز هستا وأوجن بي صاحب يال هدا جروي جنبس بنسي هستا waxaad leeyahay midnimada iyo wada jirka iyo tolnimada iyo wax wada qabsiga iyo hore u socodka aan ku dadaalo wasageli baanto nin kastoo meesha aad taagan tahay kaalintaada ka qabso ma fahanteen kaalinta nin walba meesha aad taagan tahay ka qabso ninka warsangeliyo والله هذا كقبسون ويدو أمر بإلهي كوردا يابا نيكي ورسنجليو مشى تاجنتها كقبسو نيكي دول بهانتو مشى تاجنتها كقبسو وذا جيركا يوم لماذا وضو عرفتين إن منيابوليس يو نورث أمريكا شرر باكا صعدة إن يورو وردن شرر باكا صعدة إن صدق كبيشة إن شاء الله وبإذن الله وقد عايا شركي وجوهنا بعد عايا شركي وجوهنا بس صدق كبيشة كوبي تمناد وبرية هدي لها إدم دعايا وبرية haddii ilaahay idmo dhacaya wuxuu ka dhici doonaa Switzerland wuxuu ka dhacaa Finland Germany Sweden Norway Denmark Canada North America haddii alla ku royahay meel alla iyo meel kasta oo dhulbaante iyo warsangeli iyo jaaliyadaha ay joogaanin buu ka dhacaya insha Allah bidnillaahi congress-kaasi marka uu dhaco waxa ka dambeeya wadan kasta inay ku midoobaan oo isugu yimaadaan oo shirar ay ku qabsadaan haday reer Germany tahay shir isugu yimaadaan haday tahay reer Sweden ay shir isugu yimaadaan haday tahay reer Denmark ay shir isugu yimaadaan sida North America ay hadda u shireen oo hadda shirar ku socdaan oo hadda la ku reeyay qaban qaabadii ay u socoto wadankiina Soomaaliyana waxa ka socda shirar baa ka socda gaargaara iyo shirar gooniya iyo shirar laga wada midaysan yahay baa ka socda wadankiina ka socda marka walaalahayga waxaan leeyahay aan taageerno oo inagu istaageerno oo meesha aan ka kacno waa habsaanay odayaal baan ku habsaanay haddaan dhalinyarada nahay aan isxilqaano oday yaan waxba weydiin oday yaan waxba weydiin laakiin waxaan rabnaa jiilkeena nadiifta ah caqligoodu saliimka yahay aragtidoodu dheer tahay arkaya asaageena inala midka ahaa iyo wiilasha inala midka ahaa horumarka maanta ay dadkoodu gaarsiiyeen innagana haddaan nahay dhalinyar nahay inaan dadkeena horumar gaarsiino مفهمتين dadkeena iyo dalkeena inaan horumar gaarsiino ayaan rabnaa insha Allah باذن الله marka waxaan rabaa inaan meesha ka kacno walow ay yartihiin laakiin yaraantiina waxaan iska maleynayaa oo xagga sheertay ka liidataa oo hadii la ku reeyay laakiin mar bay kici doontaa insha Allah باذن الله dadku ma jecla taladeena dad badan oo ka naxaaya baa jira oo ana waayano kuwa dhintay hadda kuwa ku jira oo ka naxaaya warsangeliyo dhulbaanta wax qabsanaya ee ka xun warsangeliyo dhulbaanta maaragtay wax isu geenaya war wallahi kuwa dhimanaya inta raali ka ah loof soo yaaciya iyo leegta loof iyo leeg soo saara anu wada qaanay leef iyo log iyo leef waxa saartaa loof iyo saa u yaaciya iyo leeg saa u yaaciya inta raali ka ah inaan dhulbaanta iyo warsangeliyo wax noqdaano saa wax u yaaciya ilaahay baad ugu dhaariyay 60 qof faateen 60 kinaasi balinta ku jirto saa wax u yaaciya لايف يلوك ساو ياعية إلا ما تقول داري لايف يلوك سهل مرو ياعية ما تامر روانو ساو تابتا جك 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 سيا لايك يلوفت جك 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 ساو تابتا انت تاغيرسن من لماذا ورسنجري يقول بانتا تاغيرسن سا دك 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 سيا لوفت ساو ياعية لايك ساو ياعية عدو باكبو حالة كاني عدو قاعد مالاي والله انا اركاي كوا بدن انا وجهدي waa suxeen kuwa hadda ambulance loo dalbaan marinaya waa ka xuyeen وسنكري البانتا قبصنا وكحوين والله أنا بدي شيء وكحوين بليس ساوي يعيا دك 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 سي ودي ما عيان ودنو استاجي والله والله حتى بالإك هيرك إيجارين وربنا يرتض وكحون تاقول سكدا وحجرت كودي سودان جراسيو فروليو بقرضيو سكدا والله ويلير ومجرتين أنا أقرين إنه البانتا ورسجلوا قبصنا وكليه ولي بكرر ريب تذكر
nimanka maxamuud saleebaan waaba dhimanayaanba nimanka maxamuud saleebaan ee saddexda ah ee yiri xitaa calankii puntland waa cismaan maxamuud iyo cumar maxamuud iyo ciise maxamuud yidhi waa dhimanayaan baa ilaha iga sarreeya baad idhi nin war wiilka 12 jirka ah wuxuu ku leeyahay dhulmaantay warsagel nagama goy karaa nin nagama marmaan buu ku leeyahay xaggana la mid reer somaliland waxay leeyahay war dhulmaantay warsagel xaggee naga tagayaan naader oo arrin adeerta xaggee tegin nimankan meel bay aadayaan bay ku leeyihin maxaa marka waa ku rugbanay meeshii xaggana waxay leeyahay aribow dhulmaantay warsagel bow meel tegi maayaane albow berribe kale way imanayaan bow berribe kale way imanayaan buu ku leeyahay haye heerkaasaa la maraya caqligeenna xaggee jooga idinka dhulbaanto iyo warsgeliyo caqligeenna xaggee jooga marka waxaan idiga rabaa insha allahu bidnillaahi inaad taageero buuxda aad samaysaanin oo maaragtay nin walbaa kaalintiisa uu meesha ka qabsado qeybta hadalka berri conferenceka waa ogaan doonaa insha allahu bidnillahi berraa gelaynaa berri baa geli doonaa ninkii dhulbaanta ah iyo ninkii warsangeliya beejka shiino culay booqda haddii alla ku royahay ninkaa firfircoon ee tabaabushaha iyo howlkarka ah oo suxul qaamay maanta maaragtay haddii alla ku royahay shiino booqda beejkiisa booqda waa arki doontaan insha allahu bidnillaahi lambaradii iyo telefoonadii iyo haddii alla ku royay akhbaaraadkii halkaas baa ka helaysaan laakiin maxay kugu talla xamuud saleeyaanka dadka waa kusoo dhex dhuntaa war wallaahi luuqadda waxa weeye laysar baanu saa u gelinay oo qofka maxamuud saleebaan daaq soo dhaha laysarkaasaa sheegaya weeq buu dhaha hadda dukaamada marka aa gashaanin mashiin baa kugu qaylinaya haddii alaabta qeyb boorsada alaabta dharka raacdo mashiin baa kugu qaylinaya buu leeyahay nin maxamuud saleebaan hadduu kusoo dhex dhunto laysar baa ku jira laysarkaas waa qaylinaya wuxuu leeyahay dhalalow daasuu leeyahay ma fahanteen marka lalama wadi karo kaasi waa kaa ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allahu bidnillaahi kuwii wax qabsada kuwii ilaahay idankii wax qabsada waxa lagu farxo ummadda soomaaliyeed wax tara dadku wada leeyahay aan cid gaara lahayn soomaali leedahay calankeena nuur wallahi laafiyo calankayga waa jeclahay oka xag buu igu xiran yahay aniga adeer soomaali dhalada ma ahanu bartaas buu igu xiran yahay halkaas igu xiran yahay mar garteen maxaa marka calan reer iyo calan qabiil leeyahay xitaa gacmahayga wax kuma jiraanin wax kuma jiraanin waa mamnuuc bay iga tahay ya xitaa gacmaha wax ma gashto xaaraam caleyk xitaa gacmaha wax ma gashto waa mid baa igu jiray berigaan maaragtay hadda wadaad baan u tegay oo haddii alla ku royay furdaamiye wuxuu yidhi waxbaa lagu taagay buu yidhi oo qoladaas maxamuud saleebaan baa wax kugu baalkaysayo meel waxbay ku akhriyeen baa lagu yidhi marka wadaad baan u tegay barakaysan oo khayr qaba oo haddii alla ku royay ilaahay uu ku manaystay ya diintiisa ilaahay ku manaystay oo cilmi ilaahay ku shubay madaxiisa baa furdaamiyey khayr allah ku siiyo sheekh khayr allah ku siiyo sheekh ma fahante khayr allah ku siiyo sheekh marka insha allahu bidnillaahi ilaahay idankii waa guuleysanaynaa meel baan maaragtay wax dhigan doonaa haddii allahu idmo waxaan noqonaynaa kuwo maaragtay midnimadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda iyo aayahooda ka tashada wixii cadow ah oo aan leenahay ilaahu cadowga naga qabto ilaahay khayrka haynaysa waafajiyo ilaahay talada fiican iyo haddii alla ku reeyo waxa wanaagsan haynagu mideeyo ilaahay wixii xun iyo wixii nacaba iyo wixii cadow ana ilaahay ishooda haynaga jeediyo baan leeyahay ilaahay ishooda haynaga jeediyo oday weyn baan ahay oo haddii alla ku reeyo maanta 60kii baan sii gelayaa waxaa iga dhiman 60kii waxaa i dheer 3 baa i dheer 63 baan sii marayaa mar haddaa 63 gashona waa inaad ka talisaa wanaaga ka talisaa ducadaaduna ducadiisana waa la aqbalaa 63 gaaray maaragtay 63 jir waa la aqbalayaa ducadeedu waa aqbal weeye 63 baa marayaa insha allahu bidnillaahi ducadeedu waa muxuu oran jiray bk calankeenu mudh ducadeenu baan leeyahay ducadeenu waa maqbuula ya
allah ina mideeyo wixii xun allah inaga saaro inta xitaa inaga warsangeliga ku dhex jirta iyo inta dhulbaantaha ku dhex jirtana ee xun allah soo hadeeyo kuwaan soo hadaysmayna allah inaga saaro meel daran iyo reer muskood baan ugu duceynay inta soo hadaysmi weyda meel daran iyo reer muskood aan ugu duceynay meel daran allah idin dhigo baan leenahay inta kalena waxaan leenahay ilaahay idin soo hadeeyo walaalahayo baa tihiin idigama maarano dhiiggayagii baa tihiin dad waxdalle baan nahay ma fahante dad wax wada leh baan nahay oo isku mid ah 9 oo la kala qaado ma lihin dhulbahaantow kaca warsangeliyow kaca guuleysta dad meel wax wada maray allah idinka dhigo waxaan idin leeyahay waxaa inoo ballana midnimo waxaa inoo ballana wax wada qabsi waxaa inoo ballana horumar insha allah bidnillahi horumar baa inoo ballana dhammaanteenba horumar baa inoo ballana hal kaftanana waa kusii darsanayaaye dad baa intaa wax moodayaan war anugu ilaahay baa maaragtay faatixada i mara isha maaragtay dhaha waxa weye dad baa maaragtay bootar iyo daayo wejiga la marsado iyo war ilaahay baa dadka iska waa abuur alla beero wey waa abuur ilaahay baa dadka siiya alxamdulilah rabbilcaalamiin dhaha walow ayan ahayn wax weyn ahayn laa ilaha illa allah maxaa warnimayow haddaan galo dee nimanka anugu geli maaye iyaga mar baa usoo jeesan doonaa insha allah bidnillahi saaxiibaday ma fahanteen marka ilaahay idankii midnima idin rajaynayaa waan idin salaamayaa dhammaantiin intay jecel iyo inta necebna waa idin salaamaya dhammaantiin bakheer baan isku ognaa insha allah bidnillahi waa soo wada xiriiri doonaa waana kasoo hadli doonaa insha allah bidnillahi aad baan idin salaamaya